ما هن weerarto محل before the deal being finalized intaan dealka si toos ah kaamil ah qalinka loogu duwin waa MOU hadda in marka waxa la sugayaa waxyaalo badan technical team loo saaray qoladan ka soo kala saasi keentay marka teamka labada team ay waxay wada garan doonaan meeshii ugu dambeysay taasoo laga yaabi karo in labada madax xataa inay isu yimaadaan Trump inuu yimaado madaxweynaha Iran inuu yimaado markii ugu horeysay kulay waa arki doonaa marka 30 kan maalmood ee soo socda kulay waxa jira imtixaan Maraykan ku socda hadduu kaga baxan hadee jab rasmi oo qaatay hadduu ku adkaystaan hadda dealkii ma socon doono arinta kulay waan u joognaa okay Netanyahu maanta uu hadlay wali waxaan dhihi karnaa uu calool hadlay wuxuu leeyahay Israel waxay u baahan tahay to free itself inay iska xoreyso ku xirnaanshaha Maraykanka gaar ahaan dhinaca hubka waa in ay yeelataa Israel qorshaheegana uu yahay leeyahay yani madax banaani hub oo ayada soo saarato oo aynan Maraykanka sida gaarka ay ugu xiran tahay deertaan dhibaato badan oo la gaarsiiyay sida uu leeyahay sidaas video haday kii kan ka horeeyay maxaan ku sheegnay khubarada Israel waxay leeyihiin Israel maanta waxay u liidataa ay u jabtay si aan caadi ahayn Netanyahu dagaalku wuxuu u galay inuu ku guuleysto Maraykankana si alla sida uga dhaadhicin karo uga dhaadhiciyay waa u aqbalay Maraykanka okay waa la isla galay laakiin maxaa dhacay hadafkii iyo guushii la rabay inuu la gaarin ayaa Maraykanka wuxuu arkay in meesha Israel waxna inuu ku heen ayagana ay wax ku heenin dagaalku uu iska joojiyay Maraykanka Israel waxay taanta Maraykanka maxaa say wax wadaan وحوجا لهذين ما يعني مال صارنا ما هو بربرنا وحي لا ميدكا كل هالكاس اي حاله مريسا اوكي ايران غوده هذا انترنت كا ستارلينك What happens every time there's a protest? They turn off the internet and then there's no communications. So what I had started was a process of acquiring and smuggling into Iran tens of thousands of Starlink receptors. ونفت البنات ورئيس وزراء هراء اسرائيل حدنا dawladda Maraykanka sida farsamaysan ay u qorshay in aan kumanaan yani sheegay internetka Starlink aan gelino gudaha Iran sababtan waxay ahayd uu yiri ama fikradda ay ku timid maadaama aan aragno marka uu kacdoon bilowdo gudaha Iran mudaharaadii ay bilowdaan Iran internetka damisa markaas anaga dhagaha ay indhahana tirma waxaan ognahay malahan waxaan la socno malahan arintii ay nagu dhalisay maadaama sirdoon hadda meesha u joogo waxa ka dhalatay marka fikradda ah inaan internet marka gelino gudaha Iran oo waliba aan si macnaha aan u dudus yani si hoos aan u gelino taa waxay keentay marka waa maxay in internet badan kumanaan ah oo ku tilmaamay in gudaha Iran ay geeyeen laakiin dawladda Netanyahu ay leeyahay ayaa joojisay arintii adiga dawladda oo eedeynaya marka dabcan Iran hadda arintii way isla fahantay way fahantay yani waa tayla dagaalantay ee kumanaan nafteeda soo qabatay aan ku soo bandhignay still way wadaa qabashadooda iyo raadintooda okay waxa jira marka ismaan dhaaf dhinaca Maraykanka iyo Israel Iran ka dhaxeeya daraad waxa hadal shalay waxa JD Vance oo yiri in qolada IAEA ay booqan doonaan Iran si ay u soo baaraan meelihii uraniumta Iran goobaha maanta marka Iran waxay tiri arintaasi kuma ana wada hadlin heshiiska kuma jirin waa beentooda meelaha ay Maraykanka iyo Israel naga duqeeyeenna meel la tagi karo ma ahanba ninka uu xil saaran gudoomiyaha hay'adaasna lama aanan kulmin mana soo booqan doono marka Maraykankana waxay leeyihiin arintaas dhici doonta Iiraaninta waxay wax ka jiraan waa been almuhim taana taawiyaan ugu dambeyn arintan bal aan isu taagno Israa'iiliyiinta in badan qorshahooda يعني sanadaha soo socda marka qarkiisa waxa soo dusiya oo si sheega dhigaha dadkana soo gaarsiiya rag lagu tilmaamay yani military hore saraakiil hore khubaro professor iyo wixii lamidka ah hadda arintan meel shir weyn oo yahuuda iyo yani dawladda Israa'iil iyo sida isu balaarinaysa iyo qorshaha u degsan isbalaarinta Israa'iil iyo sanadaha soo socda waxa ay wajahaysa ee caqabada ah shir weyn oo marka nooca ah oo ka dhacay Qudus ayaa Amayit Cohen wuxuu ka yiri in laazim ay tahay 15 sano hadda aan ku jirno hadda ilaa 15 sano gudahooda in Israa'iil ku qasban tahay inay Masar weerarto wuxuu yiri
وعدو قرب كنوغو هايا مربا مركا دنبايسانا سي حوغي سنايا لغونا كرسونان كرين هوغان كيسا اسبد بدلي كرايا maxay la hadirtaan hogaanka hadii lagu kalsoon yahay yiri waxa dhici karta muddo ay ahaataba in hogaankii isu bedelo marka shaki kuma jiro leeyahay inaan isqaban doono gaar ahaan wuxuu leeyahay marka wadankaasi Masar ah ayaa ka horeeya handadaada kale Turkiga ah Turkigana sidaas oo kale isqaban doonaan laakiin mar walba wuxuu leeyahay kan garabka maadaama uu yahay asaan nooga horeeya wuxuu sheegayaa khubaro kale inay ra'yi qabaan oo ah Turkiga inuu ka horeeyo almuhim العدي waxa la soo qarinayo Israa'iil inay weerarto Masar 15 kan gudihiisa sanay soo socotay yani ama 15 kan sanad aan ku jirno balse kula taarintaasi dhiirnaasha inta la eg ti Iran hadda ayna ka kaban hadirtan dagaal 15 sano gudaheeda yani ay la soo diyaarinaya bal wax ka dheh inta soo ku soo koobaya salaamu alaykum